buugga waxqabadka xukuumadda sanadka 2013 weeye waxqabadka guud ahaanba xukuumaddu qabatay in buugaag la soo sameeyo ilaa iyo goboladana loo dhaadhiciyo intaasiba way inoo qabsoomeen waxa kaloo xiga xafiiska warfaafintu uu sameeyaa diyaarinta documentary filmo iyo barnaamijyo kala duwan documentary filmadaasi waxay ka kooban yihiin dhammaanba sektorka dawladda ay xafiisyada waxqabadyada u qabsooma iyo waxyaabaha la fuliyay haday noqoto dhinaca mashaariicda haday noqoto nabadgelyada iyo hawlaha kaleba documentary filmyada sanadkan in la sameeyo ay ahayd waxay noo qorshaysnaa in 20 documentary oo sektorada kala duwan la sameeyo wixii aanu qorsheysanay 720 film baa noo qabsoomay oo documentary oo sektor kasta oo deegaanka ka muuqan karo dood cilmiyeedyo iyaguna noo qorshaysnaa baa jiray 4 dood cilmiyeedyo oo xaaladii taagneed gaar ahaan ku saabsanayd waqtigii TPLF weerarka dalka ku qaaday oo aan kaga hadlaynay dhinaca jihaynta shacabka kuwaasna way noo wada qabsoomeen shirar jaraa'id baa iyaguna inoo qabsoomay shirarka jaraa'id laba qaab baan u dhignaa ka xafiis ahaan mid waxa weeye inta warbaahinta loo yeero oo press briefing la siiyo mid kalena waxa weeyaan qoraal ahaan inta lagu soo saaro warbaahinta dalka oo dhan loo wada qaybiyo laba luqadood baan ku soo saarnaa luqadda Soomaaliga ee teena iyo luqadda Amxaariga takale xafiisku wuxuu fuliyaa tababaro kala duwan oo la siinayo wariyaasha qaybaha kala duwan ee shacabka tababaradaas waxaa ka mid ah tababarka anshaxa saxaafadda waxa kaloo ka mid ah tababarka xirfadlayaasha idaacadaha bulshada tusaale tababarka anshaxa saxaafadda markaan ka hadlayno bayaanka dib loo habeeyay saxaafadda dalka ah baa jira kaas oo inta la turjumo warbaahinta deegaanka iyo wariyaashaba la siiyo in aan bisino 70 wariye baa inoo qorshaysneed saasay inoogu fushay ta kale waxaa jira tababarada kala duwan ee aanu siino shaqaalaha isla xafiiska kaasi waxa ka mid ah in habeynta muuqaalada qofka wariyaha ah in uu isagu muuqaalka haduu soo duubto oo isagu computerkiisa ku habaysan karo oo uunan u baahanin time consuming soo sameeyo kobcinta garaadka xiriirka dadweynaha dhammaan xafiisyada deegaanka oo dhan waxay leeyihiin PR bay wada leeyihiin PR ka radaasi anagu waan u yeernay tiraba 3 jeer tababaraan siinay laakiin marka feedback aan raadino functional maaha caqabadahaasina waxay ka jiraan xagga xafiisyada PR ka sectorka PR ka xafiisyada looma arko sector kamid ah xafiisyada iyagana lama soo maro taasina waxay keentay inay xogta jirin tababaradaasina waxa kamid ah xafiis walbaba PR ku inuu sameeyo Facebook baraha bulshada waxqabadka xafiiska xagga ku post gareeyo kadib xagga laga qaato kaliya in television loo yeedho maaha xafiiska qabsan kara taasina waan qabanay ta kale tababarka doorka warbaahinta iyo nabadgelyada waxa jira hate speech oo xilliyadii dhaweyd aad ugu soo badanayay dalka iyo deegaanka anshaxa saxaafaddu muxuu ka qabaa tababaradaas waan bixinay guud ahaanba tababaradaas 400 oo qof baan tababarnay ilaa iyo heer degmo kan kale waxa weeye warbixinta waxqabadka mashaariicda aan fulino badana mashaariic waaweyn maaha waa kuwa softiya waxa uu horeeyo horumarinta iyo casriyeynta aaladaha warbaahineed ama afka qalad loo yaqaano digital media waxa kamida in baraha bulshada xoog la saaro tusaale xafiiska warfaafintu laba page buu ku leeyahay Facebooka mid waa kan aan luqadda Amxaari ku qorno midna waa ka Soomaaliga in la boost gareeyo takale in sponsor la sameeyo tigtana loo keeno waxa marka lagu guuleystay in ka Soomaaliga blue badge loo sameeyo kanaan luqadda Amxaari ku qornona hadda uu socda maalmahan insha Allah tigta wayna soo gaaraysaa awshaas way noo qabsoontay waxa kale oo iyadana la sameeyay ama la diyaariyay xarunta kaydka oo iyaduna digital marka mashruuc wuxuu ku soo baxay ahayd in la dhiso xarunta kaydka ee dawladda Soomaalida laakiin dhisma maadaama ay noqon weeday waxaan u bedelnay in aanu ka dhigno digital website la sameeyo iyo social media lagu habeeyo taasina waxay keentay in aynu noo qabsanto waxyaabaha aanu sameeyno dhan Facebook lagu post gareeyo iyo dhammaan dokumentariyada la sameeyo in lagu kaydiyo oo xogaha deegaanka la sameeyo waxa kale oo qorshahan inoogu jirto hadda socda radio Harar barnaamijkii Soomaaliga ah ay ka bixi jiray laga bilaabo 70-yadii in aan soo ururino hadda digital u bedelno oo hawsheedii ay socoto waxa kale oo xiga xafiisku xilliyadii abaaraha muxuu qabtay baa meesha taala waxqabadka xafiiska warfaafinta ee abaaraha ama ka jawaabista abaaraha ku saabsanaa waxay ahayd
in la jiheeyo warbaahinta dunida iyo dalka iyo deegaankaba waxaan u soo saarnay xilligaas communication strategy oo ku saabsan qaabka ka jawaabista abaaraha iyo saxaafaddu qaabkii adeegsan kartaa saxaafad monitoring markaan ku sameeyno qaarkood waxaan ku helay xoga feeka inay tabiyaan kuwaasi xilliyada habeenkii ama maalmaha weekendiga tiimamka u qaabilsan waxay sameeyaan media monitoring waana laga talaabo qaaday ta kale xogaha dawladdu ay ka jawaabista abaaraha qaabkii uga jawaabayso oo kale dawladdu in aanu u tabino bulshada jawaab celiimta laga geystay xagga abaaraha in ay mas'uuliyiinta xafiisku ay ka hadlaan waxaan u kala qaadnay communication strategy ku aadan abaaraha 3 luqadood in aanu bal ku gaarsiino mid waxa ahayd locally dadkeena Soomaalida jawaabta ay dawladdu sameeyeen aan siino midna nationally in aan luqadaha kala gedisan ee dalka lagaga hadlo in aan telefishinada invite gareeno oo aanu waxa ay dawladdu qabatay qaabka looga jawaabayo aanu ka tala bixino ta kalena internationally luqadaha Ingiriiska Frenchka iyo Carabiga aan favor gareynay laakiin nasiib wanaag waxaanu helay kuwa Carabiga ku hadla sida Al-Ain iyo sida Al Jazeera oo aan u yeernay deegaanka yimiday iyaguna warbixinada jira iyo xaqiiqaha dhabtee jira si ay ugu tabiyaan dadka kale